waxaan ku jirnaa sanadka 2026 taas oo ka dhigan dhalashadii Nabi Ciise waxa lagu joogaa qiyaastii 2026 sano ka hor haddii aan ku dhamaanto waxaan ku hayaa taariikh ku saabsan Soomaaliya ka hor 2000 oo sano oo ay u badan tahay inaan iskuulka iyo jaamacadda midna lagu dhigay bal daaw 2000 oo sano ka hor intii aysan London magaaloobin oo Baghdadna warkeeda jirin dabaylaha badweynta Hindiya waxay doonta beec mushtir iyo badmaaxi Greek ahaa u kaxeeyeen xeebta magaalo lagu magacaabi jiray Oponi wax kale ma ahay waa xafunta aan maanta naqaan ee ku taala cirifka bari ee Soomaaliya Oponi waa magacii ay xafuun Greekii hore u yaqaaneen oo waagaas ahayd magaalo xeebeed ganacsi oo ay badmaaxayaasha iyo ganacsatadii Masaarida Greeka iyo Shiinuhuba si fiican u yaqaaneen sheekada xafuun waxaa diiwaan geliyay badmaaxaas Greek ah oo aan magaciisa lahaynin wuxuu sheekada ku qoray buugyaraha Priblus of the Erythraean Sea oo la aaminsan yahay in uu qoray intii u dhaxaysay sanadaha 40 ilaa 70 ee qarnigii koowaad ee miilaadiga buugu wuxuu faahfaahinayaa khadadka badda ee loo maro magaalooyinka xeebaha bariga Afrika iyo jasiiradda Carbeed marka dhoofka laga soo bilaabo badda cas iyo Masartii ay barigaas Roomaanku xukumayeen wuxuu kaloo buuga ku sheegayaa alaabaha iyo badeecooyinka xafuun laga heli jiray oo ay dunida kale ka iibin jirtay badeecadahaas waxaa ugu cadcad qarfaha lubaanta beeyada iyo aleelooyinka quruxda badan ee badweynta Hindiya oo ay Roomaanku markay iibsadaan ka sameyn jireen qalabka ay dumarku quruxda u xirtaan sheekada xiisaha leh waa in sida badmaaxahaas uu indhihiisa ku arkay ay waagaas xafuun ahayd magaalo ganacsi oo ku xiran Shiinaha Hindiya jasiiradda Carbeed iyo boqortooyadii Roomaanka ee Masar ka talin jirtay si kale kuma garatide sida ay xafuun u tahay magaalo aad u facweyn waxay caamirnayd oo ay ganacsiga adduunka xudun u ahayd waqti ay u badan tahay in uu Nabi Ciise naxariis dushiisa ha ahaatee dadkiisu ku wacdinayay deegaanka Yahuuda oo hadda ah koonfurta Falastiin badmaaxaha Greek waxyaabaha uu buugyarihiisa ku sheegay waxaa ka mid ah in dadka uu xafuun ku arkay ay ahaayeen rag dhaadheer oo toolmoon oo maamul ahaana leh madax iyaga u gaar ah ee aan ka amar qaadanin boqortooyo ama imbraadoriyad dhulkooda ka fog sheekada magaalada xafuun oo in ka badan 2000 oo sano ka hor uu inqaastiisa ku diiwaan geliyay beec mushtarka Greek ee aan magaciisa la aqoonin waxay cadeynaysaa in Soomaalidu ay tahay ummad fac weyn oo qaarad weynta Afrika ku leh taariikh guul ah oo soo taxneed qarniyo badan oo badan ka hor